tigan ka sooday dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan hay'adda samafalka ee Khalifa Foundation ayaa ujeedada ay wadanka Soomaaliland u yimaadeen ay ahayd sidii ay kaalin muuqata ay uga qaadan lahaayeen abaaraha kala duwan ee dalka ka taagan waxaana si dhiiran ugu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa safiirka Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta la taliya madaxweynaha ee arrimaha saxaafadda gudoomiyaha hay'adda sakada madaxa maamuuska madaxweynaha xogayaha gaarka ee madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kala duwan baasha Cawl Xaaji Cumar safiirka dalka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland oo warfidyanada la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedada ay waftigan u yimaadeen ay tahay sidii ay kaalin muuqata ay uga qaadan lahaayeen abaaraha kala duwan ee dalka ka taagan isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yiri waxa runtii mahad weyn maanta inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno wafti ka socda dalka Imaaraadka Carabta sidaynu loo wada socno waxa in muddo ah dalka ka jiray abaaro saameeyay dad iyo xoolaba abaarahaasi oo runtii dhibaato fara badan u geystay shacabka iyo xoolaha dadkii xoolo dhaqatada ahaa waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u xil saaray guddi uu ka madax yahay madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland guddidaasi oo loo xil saaray inay soo diristo wax ka qabato sidii lagu gurman lahaa dadka abaaraha ah waxaynu la soconnaa ayaamahan ay socdeen gurmadkii abaaruhu oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa hawlahaasi ka wada socdeen gurmadka loo fidinaya abaaraha ayaa madaxweynuhu safiirada iyo dhammaan dalalka aynu cilaaqaadka la leenahayna u gudbiyey in la soo gaaro dadka dhibaatadu gaadhay waxaana maanta farxad weyn ah in mar kale dawladda Imaaraadku noqoto dawladdii ugu horeysay ee ka soo jawaabta dalabka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u fidiyay waxaana maanta halkan socda hay'adda Khalifa Foundation oo ah runtii hay'ad aan ugu cusbayn ragga maanta inoo soo direen ay yihiin rag iyagu yimid sanadkii dhawaa markii abaaruhuna saameeyeen insha Allah ta'ala muddada ay joogaan waxa ay muhiimadda saari doonaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka iyo dadka abaaruhu saameeyeen wixii hawla iyo wixii tafaasiil insha Allah dib ayaan u sheegi doonaa waxaan se jeclayn halkan uga mahad celiyo dawladda Imaaraadka oo iyadoo mar walba u dhagan nugul baahiyaha iyo ay dalkan iyo dadkan shacabka reer Soomaaliland leeyihiin muujisayna inay yihiin saaxiib dhaba oo garab istaaga markasto ay Soomaaliland u baahato Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland gagada diyaaradaha caalamiga ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.